kusoo dhawaada maadada cell biology-ga. Casharka hore ee midkan ka horeeya waxaan ugu soo hadalnay taariikhda maadada, yacni waqtigii la aasaasay maadada. Sidoo kale dadkii aasaasay markaan leenahay yacni waxaan ka wadnaa maadada waqtigii lasoo ikhtiraacay amba saynis yahanada markii ay maadadan inay jirtay ogaadeen waxa loo yaqaano cellka. iyo sidoo kale dadkaas magacahoodii, sanadkii, tijaabooyinkii lasoo sameeyey. casharka intaasaa looga soo hadlay. kanna waa kii labaad marka oo qaybta introductionka ku jirnaa weli. haddana waxaan baro doonaa marka cellka waxa uu yahay ayaanu baranaynaa haddii ilaahay ogolaado. waxaan idin soo jeedinayaa anigu ah Ilyas Ibrahim. marka isla socod wacan. qaybtan marka overview-ga amba soo hordhaca marka aan ku hormarno waxaan ku baran doonaa qaybtan hordhaca ee casharkeena amba intuu casharkan noo socdo waxaan ku baran doonaa cell theory-ga, aragtida laga qabo cellka amba aragtiyaha cellka laga qabo. sidoo kale waxaan ku baran doonaa what are cells, waa maxay cells-yadu. qodobka kale waxa waaye how cells are produced, sidee cells-yada loo soo saaraa. waxaa kaloo ku baran doonaa types of cellka meeqa loo qaybiyaa. waxaa kaloo baran doonaa cell number markaan leenahay waxaan uga jeednaa amba aan ka wadnaa cellka haddii uu hal xaba yahana magac uu yeelan doonaa, haddii hal iyo wax ka badan macnaha hal wixii ka badan uu yahana magac kale uu yeelan doonaa. sidoo kale cell shape ayaan ka hadli doonaa amba qaabka uu cellku leeyahay. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa cell size, cabirka uu cellku uu leeyahay. waxaan ka hadli doonaa parts of cellka partiskiisa ama meelaha uu ka kooban yahay. kan ugu dambeeyana waxaa waa functions of the cell. intaas qodoba marka casharkan ku baran doonaa haddii ilaah yiraahdo. waxaan ku hormaraynaa marka qaybta cell theory-ga. waxaa jirta marka aragtiyo kala duwan maadaama aan theory iyo waxaan ka hadlayno. 1839 ayaa aragtiyada meeshan kaaga muuqataa la kala qoray. waxaana qoray saddexda nin ee meesha kaaga muuqata. saddexda nin marka labo isku ra'yi noqdeen oo isku aragtiyo noqdeen, halna aragtiisa gooni oo la noqday. 1839 labadan nin oo midna loo yaqaano Theodore Schwann midna loo yaqaano Smith-Yan Jacob Shelton ayaa waxay isku raaceen labada aragtiyo kor ku qoran oo maxay yihiin all living organisms are composed of one or more cells. waxay yidhaahdeen dhammaan waxyaabaha nool waxay ka kooban yihiin ama ay ka samaysan yihiin hal cell amba wax ka badan. qodobka labaad waxa waaye waxay yidhaahdeen the cell is the basic structural and functional unit of all living things. waxay yidhahdeen sidoo kale cellku waxa waaye aas-aaska qaab dhismeedka iyo shaqada ee waxyaabaha nool ay leeyihiin. labadoodu marka aragtidaas ayay mideeyeen 1839 ayayna ahayd. midkan kaloo loo yaqaano Rudolf Virchow asigana 1855 ayuu aragtidan saddexaad keeno. wuxuu leeyahay cells arise from pre-existing cells waxay ka imaadeen cell hore ayuu u jiray ayay ka imaadeen, waxayna ku yimaadeen hab loo yaqaano cell division oo ah cellka inuu qaybsamo weliba mitosis iyo meiosis. laakiin kuma imaanin waxa loo yaqaano not derived from spontaneous generation. marka aragti waxaa jirta loo yaqaano spontaneous generation, yacni nin oo waxaa jiro loo yaqaano sidaan jeclaha u ahaa Louis Pasteur. marka ninkaas wuxuu leeyahay ambas aragtina spontaneous generation ayaa waxay tahay inuu dhahay waxyaabaha nool waxay ka imaadeen non living matter, macnaha waxyaabaha aan nooleyn ay ka imaadeen aragti noocaas camala. soo markaas wuxuu leeyahay taas kuma imaanin cell ay ka imaadeen, cellkaas oo hore u jiri jiray waxayna ku yimaadeen qaab loo yaqaano cell division ayay ku yimaadeen. marka mitosis iyo meiosis waan baran doonaa, waxbaha ku wareerin insha Allah.
waxaa jirta marka aragti kaloo loo yaqaano modern cell theory, aragti marka cusub oo tan ka dambeysay ayaa jirta oo modern ah. ayadana maxay leedahay cells contain hereditary information in their DNA. waxaa leeyahay selka DNA-diisa waxaa ku jirto, macnaha selka DNA-diisa waxaa laga helayaa hereditary information, waxyaabo oo dhaxaltooyada ah ayaa laga helayaa. This information is passed to new cells by cell division. marka xogtan ku jirto selka gudihiisana waxaa loo gudbiyaa sel kale ayaa loo gudbiyaa, sel cusub ayaa loo gudbiyaa. oo marka la rabo in cell division, weliba wuxuu ku imaanayaa cell division oo selka marka la badinayo hal sel asigoo la rabo in laba sel laga dhigo, DNA-da ee selkan uu leeyahay informationka ku jirtay amba hereditary informationka ku jiray sel kalena waa loo gudbinayaa. aragtida kale maxaa waaye? aragtidan kale waxaa waaye all cells have the same basic chemical composition. wuxuu leeyahay aragtidan kale ay leedahay dhammaan selisyadu waxay leeyihiin qaab dhismeed isku mid ayay leeyihiin, oo markii la fiiriyo chemical composition-kooda isku mid waaye, macnaha basic chemical composition wuxuu leeyahay intaas. marka maxaa waaye iskaga mid ayay ka yihiin. sawirka marka haddii aad fiiriso, marka qodobkan shanaad aan ka hadlayno, qodobka koowaad oo afraad hereditary informationka selisyada uu korka ugu sawiray oo la kala badinayo oo cell division ku dhacayo. kan kalena waxa waaye marka uu leeyahay basic chemical composition, carbonki, nitrogenki, hydrogenki, oxygenki, phosphateki iyo sulfurki, wuxuu dhan uu ku tusaya, macnaha sawirku intaas uu ku muujinaya. marka waa kan ka wada marka qaybta uu ku leeyahay ama qodobka kalaad waxa waaye shanaad wuxuu ku tilmaamayaa sawirkaana ku tilmaamaya, macnaha marka uu ku leeyahay basic chemical composition. qodobka lixaad marka maxaa waaye energy flow ayaa wuxuu ka dhacaa occurs within the cell. energy marka in la isticmaalana wuxuu ka dhacaa selka gudihiisa ayuu ka dhacayaa. marka saddexdaas aragti ayadana waxaa lagu soo daray aragtida hore ayaa lagu soo daray marka oo aan hore aan u haysanay. okay, weli marka selkiyaa noo socdo oo selkaasi wadi doonaa. all cells are formed by the division. waxay ku samaysmaan marka wuxuu ku leeyahay selka waxay ku yimaadaan dhammaanba qaybsan uu qaybsamaayo amba aan dhahno division of already existing cells, which in terms of biology means reproduction. marka wuxuu leeyahay selisyadu waxay ku samaysmaan inuu qaybsamo sel hore u jiray, weliba wuxuu ku samaysmayaa qaab reproduction ah oo selkii ayaa tarmaya, macnaha selkii ayaa isbadinaya. Every cell of our body comprises of genetic material which is passed down during the process. wuxuu ku leeyahay marka sel kasta ee jirkeena ku jira waxaa laga helayaa genetic material amba waxyaabihii dhaxaltooyada ee xogta ku jirtay ama hadday hore oo soo ranona sel kasta DNA-diisa waxaa ku jirta hereditary information, taasoo marka laysu gudbinaya marka cell division-ka uu dhacayo. all basic physiological and chemical functions dhammaan marka shaqooyinka cadigana waxay ka dhacayaan selka gudihiisa, oo muxuu tusaale u ah growth inay waxay korrinsho ay sameeyaan, repair in wax la dib dayactir lagu sameeyo, movement inay wax dhaqdhaqaaqaan, communication in waxay isla xiriiraan, immunity difaaci, digestion shaqooyinkaas oo dhan marka maxaa waaye are performed inside the cell. waxaa lagu go'aamiyaa amba lagu qabtaa selka gudihiisa ayaa lagu qabtaa. okay, all the activity of the cell depend mainly on activity of the subcellular structures that lie within the cell. wuxuu leeyahay marka dhammaan shaqooyinka ee selku uu qabanayo waxay ku xiran yihiin inta ugu badan shaqooyinka ay qabanayaan ama ka dhex dhacaya subcellular structureska, kuwaas oo dhex yaala selka gudihiisa. marka subcellular structures ayagana maxaa la dhahaa waa arkaynaa. the subcellular structures comprise of the plasma membrane, organelles and if present the nucleus. wuxuu ku leeyahay marka yaa waaye muxuu ahaa ii sheeg subcellular marka yaa waaye oo subcellular structures yaa waa marka plasma membrane, organelles iyo haddii selkan uu yahay muxuu ahaa ii sheeg cell leh nucleus, marka ayagaasaa shaqooyinka qabanaya. marka shaqooyinkaas ayagu qabanayaan macnaha maadaama selka gudihiisa ay ka dhacayaan kuwaasaa go'aamiya marka shaqooyinka. okay, waxaan ka hadlaynaa marka what are cells. cells marka maxaa waaye ayagana inta aan hore usoo qeexan uun baa noo soo noqonaya si aad usii fahamtid.
in all living beings cells are the basic structural unit dhammaan marka waxyaabaha nool marka loo fiiriyo selka waxaa leeyahay waa aas-aaska ee qaab dhismeedkaas ay leeyihiin. We can compare the presence of cell in our body to the bricks in building. waxaan isbarbar dhigi doonaa marka silsilada jirkeenu uu leeyahay iyo muxuu ahaa ii sheeg blocketiga dhismaha ku jira ayaanu isbarbar dhigi doonaa oo sababtu maxay tahay wuxuu ka rabaa blocketiga maxaa la dul saaray inuu dirbi dhiso amba qoryo iskor saar amba blocketi iskor saar amba dhagxaan iskor saar waxaa laga rabaa Soomaha in dirbi lagu dhiso dirbiga loo goleeyahay marka silsilada jirkeenu ku jirana sidaas aan isbarbar dhigi doonaa waa arkaynaa marka soo isbarbar dhigayo maxay tahay marka ujeedada laga leeyahay oo dhagxaanta blocketiga la dul saarayo. All the bricks are assembled to make the building. ujeedada laga leeyahay waxa waaye dhammaan muxuu ahaa ii sheeg blocketiyadu waxay noo sameynayaan dhismo ayay noo sameynayaan. Similarly marka all the cells are assembled to make the body of an organism. sidaas si la mid ah marka yacni silsiladu way isdul saaran yihiin ujeedaduna maxay tahay inay sameeyaan waxa loo yaqaano body of an organism inay sameeyaan organismki bodygiisa ama shapkiisa inay sameeyaan marka. Okay, thus it is the basic structural and functional unit of life and all organisms are made up of cells. marka sidaas darteed maadaama aan dhahnay silsiladu isdul saaran yihiin waxayna sameynayaan muxuu ahaa ii sheeg bodygay sameynaya organismka oo lahaa sidaas darteed marka selka muxuu noqonayaa marka aas-aaska qaab dhismeedka iyo shaqada ay leeyihiin waxyaabaha nool oo macnaha nolosha uu leeyahay sidoo kalena waxaa leeyahay organismku waxay ka samaysan yihiin dhammaantoodba cells ayay ka samaysan yihiin. Subcellular structures of the cell comprise of the plasma membrane, organelles, and in some cases in nucleus as well. marka ayadoo noo soo celiyo horaan soo aragnay wuxuu ku leeyahay marka subcellular structureska waxaa ka mid ah plasma membrane-ki, organelleski iyo nucleus haddii selkan uu yahay cell nucleus le marka. Okay, ka soconaynaa. How are cells produced? silsilada marka sidee loo soo saaraa tana aan fiirino. Every cell is produced by the division of cell that already exists in our body. horaan u saarayna ayadana wuxuu ku leeyahay selka waxaa lagu soo saaraa qaab ah division oo ah selka inuu bato selkaas badanayna marka waxa uu yahay waa sel hore u jiray oo jirka ku jira waaye macnaha waxa waaye already existing in our body selkan hore ayaan u haysanaa marka. Genetic material is passed down from one cell to another during reproduction process. wuxuu ku leeyahay marka waxyaabaha genetic materialka ee selkan gudihiisa laga helayo ama selkan uu haystay yacni waxaa loo gudbinayaa selka kale ayaa loo gudbinayaa waxaana loo gudbinayaa qaab ah reproduction process oo ah selki inuu tarmo oo isbadiyo. Okay, unlike the non-living bricks lama mid ah marka muxuu ahaa ii sheeg kuwa aan nooleen ama blocketiga aan nooleen oo tan muxuu soo qaatay non-living bricks muxuu soo qaatay hadaya markaan isbarbar dhigayna waxaan dhahnay selka iyo waxaan isbarbar ku sameynaynaa waxa loo yaqaan ii sheeg iyo waxaan isbarbar ku sameynaynaa selka iyo waxaan isbarbar ku sameynaynaa blocketiga amba waxa la rabo in dhismada laga sameeyo. ujeedaduna waxay ahayd in ay loo sameeyo Soomaha dhismo ay sameeyaan blocketiga dhismo sameeynaya selkuna wuxuu sameynayaa body of organism ku sameynaya. marka waxaan dhahnay selku wuxuu leeyahay DNA-diisa waxa ku jirto hereditary information ka selka kala loo gudbinayaa laakiin dhagax wuxuu leeyahay ama blocketi wuxuu leeyahay genetic material ama wuxuu isu gudbinayaa malaha Soomaha marka intaas uu ka wada macnaha. The cells of living organisms rather complex living structure marka way ka duwan yihiin oo silsilada macnaha organismka uu leeyahay kuwaas way ka duwan yihiin oo ayagu waxay leeyihiin information isu gudbinayaan informationkii wata laakiin dhagax waa la iskor saaray dhismihii uu sameeyay laakiin asugu wax information isu ma gudbinayo. Therefore the cells can divide the genetic material. mawjudada marka muxuu ahaa ii sheeg cells marka muxuu sameeyay way qaybsameen si ay u gudbo genetic material si u sameeyay waxayna sameynayaan laba cell ay sameeyaan mawjudada marka blockade hadii meel la saaro hal blockade ma qaybsamayo Soomaha hal blockade intuu qaybsamo blockade kala ma dhalayo moogtaa laakiin cellka muxuu sameeyay wuxuu noo soo saaray soo ma jeedid new cells ay soo saaray marka. Okay, marka islaam mid ahaan kan oo muxuu ahaa ii sheeg non living bricks iyo selka anaga leenahay farqigaas u dhaxeeya marka.
okay types of cell ka meeqa loo qaybiyaa there are 2k types of cell waxaa jira marka laba qaybood oo loo qaybiyo cellka waa prokaryotic iyo eukaryotic cell ayaa jiro the difference between farqiga marka labadooda u dhexeeya maxaa waa is divided mainly by waxaa lagu qeexaa inta badan muxuu ahaa presence or absence soo ma jeed presence or absence of nuclear material waxaa lagu qeexaa marka in cellku uu leeyahay farqiga u dhexeeya ka hadlayna ma ogtahay cellku inuu leeyahay nuclear membrane iyo inuu lahayn nuclear membrane macnaha it means labaduba nucleus way leeyihiin laakiin waxaa jira nuclear membrane ayaa jira nuclear membrane marka waa arkayna wuxuu yahay labadooda farqiga u dhexeeya haddaan fiirinayna marka waxaan ku hormaraynaa prokaryotic ayaan ku hormaraynaa cell oo muxuu yahay if a cell has a nuclear material haddii cellku uu leeyahay nuclear material without nuclear membrane laakiin uusan lahaynin waxa loo yaqaano nuclear membrane muujeedaa wuxuu leeyahay nuclear material laakiin maxaa waaye nuclear membrane ma laha then maxaan leenahay waxaan leeyahay is known as waxaa loo yaqaanaa prokaryotic cell ayaa loo yaqaanaa muujeedaa marka cellkan maxaa waaye nuclear material leeyahay laakiin ma laha nuclear membrane waxaa loo yaqaanaa prokaryotic ayaa loo yaqaanaa those organisms which have this type of cell are commonly known as prokaryotic ayaa loo yaqaanaa waa hore soo sheegnay marka organismka leh yani nuclear material uu leeyahay laakiin nuclear membrane ma lahan waxaa loo yaqaanaa prokaryotic cell ayaa loo yaqaanaa maxaa waaye marka boro maxay u taagantahay stands for primitive ayay u taagantahay macnaha meesha asaaska wuxuu ka yimaadaan karyonna maxay u taagantahay iyadana nucleus ayay u taagantahay okay some of the organisms that have prokaryotic cells include bacteria aniga waxa loo yaqaan algae marka kuwa cells-yada leh muxuu ahaa ii sheegay organismka ee leh prokaryotic cellka oo macnaha it means nuclear material uu leeyahay laakiin nuclear membrane ma laha kamid bacteriada kamid ah bacteria markaan soo qaadano bacteriada nucleus cellka iskaga dhex yaacsantaa nuclear membrane ma laha because ayada waxay leedahay muxuu ahaa ii sheegay inflow bay leedahay moogta ayadoo uma baahna muxuu ahaa nuclear membrane uma baahna oo nuclear membrane ka uu ujeedo ama faa'iidada ay leedahay waxa waaye waxay kala ilaalinaysaa organelliska ee ku jira muxuu ahaa ii sheegay cellka gudihiisa ku jira oo ayada muxuu ahaa nucleus ay kala ilaalinaysaa marka cytoplasmkaas iyo waxay kala ilaalinaysaa muxuu ahaa organelliska ku jiro iyo nucleus tani kala ilaalinaysaa marka okay eukaryotic cell aan fiirinayna markaas igana if a cell has a nuclear material with nuclear membrane haddii cellku uu leeyahay nuclear material oo weliba uu haddana sii wato nuclear membrane it is known as waxaa loo yaqaanaa prokaryotic cell ayaa loo yaqaanaa okay waxaan leenahay marka those organisms which have this type of cell are commonly known as waxaa loo yaqaanaa eukaryotic ayaa loo yaqaanaa maxay u taagan tahay stands for true ayay u taagan tahay karyonna waxay u taagan tahay muxuu ahaa ii sheeg nucleus ayay u taagan tahay marka meesha waxaa kala soo baxaya inuu cellkan uu yahay cell nucleus sax leh because nuclear material uu leeyahay nuclear membrane uu leeyahay all living organisms except bacteria and algae have eukaryotic cell marka wuxuu ku leeyahay dhammaan waxyaabaha loo yaqaan living organismka marka laga reebo bacteria iyo algae marka laga reebo waa eukaryotic oo maxuu ahaa waxay wataan ayaga nuclearna waa leeyihiin materialka way wataan nuclear membrane waa leeyihiin these functions are very similar to the functions of the individual organism marka shaqooyinkan uu soo qabanayo waxay la mid yihiin oo aad ugu dhow yihiin muxuu ahaa ii sheegay shaqooyinka ee shakhsiga uu qabanayo macnaha individual organism uu qabsanayo even unicellular organisms are capable of independent existence waxaa leeyahay xataa cellka ee muxuu ahaa unicellularka ee halka cell leh wuxuu awood u leeyahay inuu sii jiro ayuu awood u leeyahay weliba asagoo independent ah oo aan cidna ku jirsan inuu sii jiro ayuu awood u leeyahay this proves the capability of the cell to exist independent marka tani waxay cadeynaysaa cellku inuu awood u leeyahay ama jiritaanka cellku uu awood u leeyahay inuu sii jiro ay cadeynaysaa therefore cell is the structural and
and fundamental unit of life sidaa darteed marka intaan qodobo aan soo sheegnay dartood marka amba waxyaabahan iyadoo lagu soo tusaaleeyay ayuu salku wuxuu yahay fundamental wuxuu yahay structural and fundamental unit of life su'aasha lagu weydiiyay marka jawaabteedii waa tana halkaas ugu soo jawaabay su'aal kale imaado waxa lagu dhahay difference between prokaryotic and eukaryotic cell maxaa waay farqiga u dhaxeeyo different waxa leenahay waxa waaye prokaryotic do not separate their genetic material within the nucleus genetic material ka yani prokaryotic ma separate maaha oo kala ma soocna genetic material kooda iyo maxaa ay sheeg oo ku dhex jiro nucleus tooda while eukaryotic do separate their genetic material in the nucleus marka يعني eukaryotic asoo markuu ka duwan yahay genetic material kiisa waxa ku jira iyo way kala habaysan yihiin waxa kala dhigi kartaa farqiga u dhaxeeyo waxa waaye midna nuclear membrane uu leeyahay midna waxa waaye nuclear membrane mala nuclear material way kooda sameeyaan laakiin nuclear membrane ay ku kala duwan yihiin okay cell number marka aan leenahay marka waxaan ka wadnaa ama ujeedaduna ay tahay yani cellkan ma hal sala oo ma unia ma multia waa fiirinayna marka macnaha cellku ma hal xabo ma laba waa fiirinayna marka our human body has a trillions of cell jirka bini aadamka ama jirkeena wuxuu leeyahay trillions of cell ayuu leeyahay each of these cells varies in shape and size cellsidan marka oo trillions ka waxay ku kala duwan yihiin shape-ka oo qaab dhismeedka iyo size-ka oo cabirka waa kala duwan yihiin there are several different groups of the cell which perform plethora of functions waxa jira marka cells kala duwan kuwaas oo hadana qabanayo shaqo isku mid ah qabanayo marka waa dhowr cell ama waa dhowr group oo cells oo kala duwan waxayna qabanayaan hadana hal shaqo isku mid ah isla qabanayaan every organism that has more than one cell is known as multicellular organism marka cell number marka aan fiiri waxa lagu dhahay organism kasta ee leh wax ka badan hal cell marka aan fiirino oo macnaha hal cell wax ka badan leh waxa loo yaqaanaa multicellular organism ayaa loo yaqaanaa okay even an organism has a billions of cells happens to begin its life with single cell that is fertilized egg wuxuu ku leeyahay marka hadii aad aragto xataa ambas hadii muxuu ahaa ii sheeg organism leh billions of cell asalkiisu intuu ka imaado ama meeshuu ka imaado maxaa waaye single cell ayuu ka imaaday oo fertilized egg oo hadda egg ambas ukunta marka maxaa waaye waa hal cell marka maxaa waaye unicellular waaye asoo unicellular marka wuxuu ka imaado muxuu ahaa asoo multicellular ambas billions of cell ayuu marka wuxuu ka imaaday hal muxuu ahaa ii sheeg cell ayuu ka imaaday this fertilized egg goes on to multiply thereby increasing the number of cells as the development takes place waxa lagu leeyahay marka fertilized eggan waxay u soconaysaa ama waxay sameynaysaa inay badato oo halka ukun oo hal cell aha wuxuu sameynayaa macnaha inuu bato hadii uu marka iyada ay badato oo cellka oo batana maxaa badanaya marka number of cellka yaa badanaya macnaha fertilized egg hadii ay badato oo macnaha hal cell asigoo ah oo laba noqdo maxaa batay marka numberka cellka badanaya ayaa badanaya if an organism is a single celled organism then it would be unicellular organism waxa leeyahay marka cellka yani organismku hadii uu yahay mid leh macnaha single cell oo yahay organism markaas waxa leenahay unicellular organism aan leenahay kii hore maxaan leenahay hadii cellkan oo organismkan uu leeyahay macnaha more than one cell oo yahay maxaan leenahay multicellular organism hadii organismkan uu yahay yani mid leh muxuu ahaa sheeg hal cell oo leeyahana maxaan leenahay unicellular organism ayaan leenahay marka okay cell shape marka aan ka hadlayno usually cells are round cells maxaa leeyahay markasta waa round waa oo wareegsan waay elongated oo ama spherical waxay sameeyeen marka ayagana sidoo kale inay ku dheer noqdaan waa dhici kartaa marka ama spherical ay noqonayaan there are also some cells which are long and pointed on both ends such as exhibit spindle shapes waxa leeyahay marka waxa jiro waxa loo yaqaano cellsida qaar marka
maxaa waaye waa launch meesha ay ku dhammaanayaanna maxaa waaye way ka fiiqfiiqan yihiin sida salisyada oo muxuu ahaa sheeg masaliska oo kale. In some cases the cells are very long. mararka qaarna maxaa leeyahay salisyadu aad bay u dheer yihiin. Some may be branched like neuron or ambas nerve cell. kuwaas marka maxaa ka mid ah marka kuwa qaar marka waxay noqon karaan branch ay noqon karaan sida neuron ama nerve cell. Nerve cell transfers and receive message. Nerve cell marka waxa waaye wuxuu gudbiyaa muxuu ahaa fariin uu helaa macnaha message uu helayaa message uu gudbinayaa. Okay, therefore helps in coordinating and controlling the working of the different parts of the body. marka nerve cells kan maadaama ay dheer yihiin waxaana moogtahay transfer ay sameeyaan oo fariin uu gudbinayo fariin uu helayaan Soomaha. sida darteed marka waxay fududeynayaan ama shaqada ay qabanayaan tahay in la sameeyo coordination oo waxay isla shaqeeyaan lana controlo shaqooyin ka dhacaya muxuu ahaa sheeg jirka meelihiisa kala duwan oo jirka kamid ah shaqooyin ka dhacaya aydaas fududeynaysa marka. The components of the cell are enclosed in membrane. waxaa leeyahay marka componentiga ama waxba silka oo kooban waxay ku dhex jiraan membrane ka ay ku dhex jiraan oo cell membrane ayay ku dhex jiraan. The membrane provides a shape. membrane kan marka wuxuu bixinayaa shape ayuu wuxuu siinayaa cellka of the animal and plantis. marka membrane kan oo aan dhahnay yani component oo cell ku dhex jiro faa'iidadiisa maxaa waaye shape ka ama qaab dhismeedka cellka ay leeyihiin animalka iyo plantis ayuu bixinayaa. Okay, there is a cell wall surrounding them. waxaa jira marka cell wall oo ku hareeraysan ayaga laakiin cell wall kan ma lahan muxuu ahaa animal cellka ma lahan ee plantis cellka ayaa leh. marka plantis cellka maxaa waaye yani waxay ka wada sameeyeen cell membrane way ka wada sameeyeen plantis cellka laakiin waxaa dheeri u ah cell wall ka dheeri u ah. The cell wall is additional covering over the cell membrane in the plantis cell. waa kana muujinayso waxaa lagu dhahaa marka yani cell wall kanu waxa waaye waa dahar dheeriya oo muxuu ahaa sheeg cell membrane ki marka loo fiiriyo plantis cellka oo cell membrane ki uu ka sii koreeyaa. marka cell membrane way wada leeyihiin plantis cellki marka cell membrane kooda waxaa ka sii koreeyo waxa loo yaqaano cell wall ka sii koreeyo. It offers marka rigidity and shape to the cell. faa'iido uu leeyahay marka maxay tahay yani cell wall kan waxa waaye wuxuu bixinayaa awoodda iyo muxuu ahaa shape ka cellka ayuu qayb ka qaadanayaa. marka waxaan soo gaarnay marka dhamaadka casharkeena. waxaan rajeynayaa inaad wax ka fahmi doontid. waxa aan qalday waxa waaye waxay ka ahaadeen nafsi shaydaan ay ka ahaadeen. waxa aan saxay ilaahay waafajiyay wixii qalad ah oo aad aragto oo casharka aad ku aragtana waxaan rajeynayaa inaad noo soo gudbiso oo gmail-kaas aad ku soo dirtid. waxbaan kala faa'iideysanaynaa maxana ma aha yani aqoon laga badan yahay kaliya maaha annaguna inaan wax faa'iidnaan diyaar u nahay. casharkeena intaas uu ku egyahay. wabillahi